With breaking news out of Ottawa, 2 men are dead and 6 others have been injured after a shooting last night outside a convention center in the city. It happened in Ottawa's South End, outside of the Infinity Convention Center at about 10:20 p.m. Police say the victims were at a wedding at the convention center when the shooting happened. The names of the victims have not been released, but police say they are not Ottawa residents. No arrests have been made in connection with the shooting. وضعنا أهلا وسهلا ولكن مهد عبد الله نحوق مسارنا سياسة دنيا قبيلة نوالته صويا عايدة وحنا حوق صارنا رمح بالشدة دادي صورنا يسو برنامجنا مهد عبد الله موضوع فعيا وطيب كرتاه runtii waxyaalaha yaab leh ayaan maanta idii hayaa oon doonayo inaan wax badan ka wada hadalno oo runtii idi tusi doono markaan diiradda idi saaro oo idi focus gareeyo waxaan maqli jirnay gala aroosyada imika way iskaga tagtay jaantaan rogay bay noqotay tusaale iyo waano odayda aan khabiirka u ahay inaad qaadato ayaan filayaa wadaagan waliba waxaan soo qaadan doonaa Sweden aroos iyadana maalin dhaweyto sidaas oo kale gabdho waxaan TikTok iyo ruwaayadan iyo soo yaacayda ruwaayada inay run moodeen mindiya isku soo qaateen markaa mindiya isku geliyay waxaan kaaga digayaa arooskaad samaynayso inuu adigu ku gooni noqdo ayaan doonayaa inaan ku tuso waxaan oo kharashay waxaan oo diracay waxaan oo kaaga bixi doona iyo dhibta sidii hore inay ka duwan tahay sidaanu naqaanay way dhaaftay wadaaga hadaba maxaa ka dhacay Ottawa sideedaba waa magaalada nabad ah waa magaalada degan oo gobolku ugu ku hadlo afka Faransiiska laba dhinac afka Faransiiska iyo afka Ingiriiska baa looga hadlaa waxa degan Soomaali iyaguna aad u degan oo qabow gobolka oo dhan ama magaalada caasimaddu way ka degan tahay marka loo eego Toronto iyo nawaaxigeeda oo iyadu jaantaan rogay waalatay oo meel sidaa u qabow oo meel dadku ay ku nabdoon yihiin marka waxa dhacday xalay aroos Soomaaliyeed oo isguursanayay ayaa arooskii waxa yimid dad fara badan intii la cazumay iyo Soomaalida dhaqankeedii inta la cazumin baa isku dhex jirta kadib waxa group gang ah ayaa waxay ka yimaadeen Toronto raadinayay group kale oo gang ah waana soo qaadan doonaa sababta ay gangkani Soomaalidu aynan marnaba aad ugu bixin karin dunida kale haddaad gaan ku jirto dhalinyaro tahay oo ka baxdo gobol kale tagtid waa laga yaabaa inay markaa sidaa ku ilaawaan Soomaaligu gaankiisii aad ku jirtay haddaad ka baxdo meel walba kaaga daba tagayaan marka iyaga isugu arsada marka aano iyaga ah oo gaankaas gruubi xaafadaha Toronto xaafad walba waxay leedahay gaan u gooniya oo Soomaalida abiba meesha ka baxay ruwaayada oo soo qaadan doona iyadana groupka ayaa waxay ka yimaadeen Toronto kuwaasoo ogaa inuu halkan aroos ka dhacayo jimcadii ayaa iyaduna la sii ogaa oo dadku dhibaatada jirta ayna waxba sheegayn xabado ka dhacday ama ninka yarka markaa mehersanay guursanayay sida la sheegayo xabado lagu furay iyo meelo kamid ah waa wax aan hubo maaha laakiin oo markaan soo bowsado telefoon diray la ii sheegay dadku markaa way sii ogaayeen waxyaalaha yaab kale iyaduna cid booliiska Soomaalida waa ta kaliya oo la yaaban yahay oo haba yaraatee aan u gudbinayn booliisku aan waxba u gudbinayn imika jilmadan iyo jugtan dhacday aad arkaysid waxa lagu leeyahay booliisku wuxuu la yaaban yahay dadkii marka la wareysanin walba uu cararaya ma sheegay waxba uu baqaya maca waalidkii Toronto joogay iyo kuwii halkan joogayba kullu waxay leeyihiin inankaygu waa maartay ma sha Allah waa dayax gacmeed buu jira hadaba haddaan dib ugu soo noqono inamada gaanka ah ayaa halkan yimid kadibna arooskii oo meel dhex maraya ayay dad ay ugaarsanayeen iyagu ma yarkii guursanayba anigu ma hubo laakiin ma garanaysaa ayaa xabada lagu furay waxa ku dhintay laba wiil ayaa halka ku dhintay inkastoo sawirkiisa iyo Facebook la soo wada geliyay haddana ma jecli videogana waxa ku jiri doona muddo badan inanka wajigiisa nin qurux badan mid markaa wuxuu jiraa 26 ka kalena wuxuu jiraa da'diisu 29 waa dhalinyaro waa baby waa ma sha Allah waqtigii lagu anfaci jireen ummadda Soomaaliyeed dantiisa iyo noloshiisaba xabada ka dhacday breaking news ka meel walba laga wacdinayo oo laga sheegayna waa ka marka laga reebo inay Soomaalidu haba yaraatay soo gudbiso anigu maxaan u soo gudbinayaa tii hore taan naqaanay hadaba way dhaaftay aroosyadii waxyaalihii aan awal ogaan jiray oo dadku ay isku haysan jireen oo isku caayi jireen oo isku dacaydin jireen waxa kamid ahaa meelaha goobo la yiraahdo Paltalk video mu jirin
codkaasina yuu yahay dee dumar iyo gabyo iyo qabaa'il iyo waxaasoo dhan oo la iscaynayo wuxuu ahaa awalba wuu jiri jiray baltog video mu ahayn iminka waxaa jira wax walba waa videos online everything tiktok bla 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 ana usoo noqon doona aroosyadan hadda dhibaatada ah haddaba dilmada ka dhacday halkaa xalay foolxumo weyn bay bulshada u reebtay oo 6 qof oo dhaawaca ilaahay maartay ha uga dhaawayo insha Allah 6 qof oo dhaawaca aroos ugu soo talagalay hablo iyo inamo iyo cid walba balqiyaas adigoo dirac $1,000 ka soo bixiyay ka badan adigoo ku soo talagalay meel qurux badan iyo aroos qurux badan inaad ka qayb gasho haddana xabad iyo lagu furay adigoo waliba kharashkii timaha iyo kharashkii barfumaadka iyo kharashkii kabaha iyo kharashkii kalena uu ku dheeryahay ee haddana dhaawacaada kulantay haddaba anigu waxaan kula talinayaa bulshada Soomaaliyeed ee intaan naqaanay way dhaaftay waxaan kula talinayaa arooska adigoo dhiganayso waxa la sheegay arooskani hoolka kaliya inuu intaas $1,000 ah 15,000 $20,000 uu ka badnaa waxa la sheegay in ubaxyada iyo flowerska iyo quruxda iyo waxaas oo ma sha Allah waxaan talada aan siinay wax kamid ah tii hore ma aha tani 4 qof oo family-gaaga iyo family-ga gabadha ah ayaa kugu filan meeshan TikTok iyo adduunyadan iyo gang bay noqotay nin Soomaalidu halkan ku nool ayaa maalin wuxuu xero ku dhigtay xero military ayuu aroos ku dhigtay albaabka qofka la soo galaya baabuurka waa la iskaan gareynaya marka laga baxayo waa la iskaan gareynaya meesha la soo galaya dhanba waa xiran tahay ma garanaysaa markaasaan warniyo meeshan aad ku dhigatay waa maxay wuxuu yiri saaxiib waxaanan ka maarmayn dad inay iska soo galaan gudaha soo gala waxay isku wada haystaan dumar TikTok iyo waxay isku wada haystaan mindiya isla dhacaan arooskaygu ma doonayeen waxa galo gabigiisa waa $1,000 oo meesha ah iyo $1,000 oo cuntadii ah ayaa lagu kala tagay ma sha Allah waxa yimid 27 qofood oo family-ga ah intaasay ku samaysteen cuntadoodii iyo flower-doodii iyo nimcadoodii waana laga dareeray nin walba nin yaqaan halkan qof baad aroos ku siinaysaa kaarkii ma iman hebla ay adigu kaarkayga qaado hebla waxay mindi u sidataa hebla waxayna ka dhacday dalka Sweden haddaba jamac baan u hadlayaa adigoo intaas soo milyanay intaas soo qarashiyo gala aroosyada caruurta aad leedahay horta ilmahan aad isguursanaya iskaan garee hooyo ama aabo gabadhan yareed khasbayso ilmaha ninkan uu guursanaya iskaan ku samee muxuu backgroundkiisu yahay muxuu ka shaqeeyaa inteebuu dowladda waxaad 7 number ama 5 number inaad ka soo qaado geli waxaad arkaysaa intaasoo dambi buu leeyahay muxuu geystay ma la daba socdaa waxaasoo dhani aday ku badbaadinayaan laakiin iska guursado dhibaatay leedahay anigu uma jeedo family-gan maaha jamac baan ka wadaa tii aroosyada markay noqoto la isku wada imanayo qof aadan garanayn 300 oo qof dad family-ga waxa la sheegay 300 bay cazumeen 150 ay markii dambe ku soo koobeen 150 uma baahnayn qodadaadan garanayn uma baahnayn dumar isku wada haysta dhibaato kale iyo rag is wada haysta gaar ahaan dumarka oo wada jilbaysan baad isu keenaysaa gaar ahaan hooyooyinka Soomaaliyeed ee aroosyada tagayo sidii hore maaha ha ku degdegin aroosaadan garanayn ha ku degdegin iska hubso dadkan aad u tagaysaa inay adiga ku daba socdaan maaha sidaan naqaanay ummadii faraxsanayd aroosku loo faraxsanaan jiray arooskan maaha arooskii runtii aanu naqaanay ilaahay barakeeyo is ilaali oo adigoo intaas soo tilmaamo kharasha ka baxay the strange aroos inaad tagto haddii xataa waxba ku soo gaarin witness baa lagu leeyahay sheeg maaragtay adaa meesha joogay goobta joogay dhaawacyo aad arkaysa meelo badan baanu aragnay xaflado fara badan oo Soomaalida Minnesota iyo Ingiriiska oo madaxa la haysto dumar iswada dilayo waxaan kaaga talinayaa kugu waaninaya haddaad aroos dhiganayso 10 qofood ama 20 qofood oo garanayso oo soo isgaangaraysay waliba Mahad Cabdulle waan garanayaa waan isgaangareeyay ma garanaysa oo waxba adiga ku geysanayn quruxdaada iyo wanaagaaga mooyee haddii laakiin aad keento bulsho kale dee waxa dhacaya sida halkaad arkayso haddaad ku dhigto meel public ah ood ku dhigto meel public bi hortooda soo istaageen markaas ay xabada fureen moogtay iyagoo ula jeeda qofkay raadinayeen waxaan waa gang yaa mas'uulka waa abaha Soomaaliyeed cid kale oo mas'uulka ah ma jiro gabdho inay xabada soo qaataan xabad ay dhuufsadeen way jiri kartaa inay xabad soo qaateen dad shudaya maaha meeshani waa niman waa inama kibrey waxaana kibrey aabayaashii
waxaa ka baxay ruulkii father figureska aabbihii baa ka baxay ma jirto aabbaho hadduu la soo koray inankiisu anfaano anigu u malayn maayo inuu bilow waxa iyo wax u dhow iyo wax u dhow ku samayn karo gabar ama cid ama qof bini aadan maxaa yeelay strict military style ayuu gurigaa kusoo koray ma garanaysa war ama ka tag hooyadii ama ha ka tegin military style adigoo ka tegay baad inankaaga intuu yar yahay wejigiisa eegaysa leedahay aniga hooyo waynu kala tagnay aniga hooyada laakiin waxaan doonayaa inaan kula socdo iskuulkaagii waxbarashadaadii kubadaadii sheekadaadii iyo wax walba 3 cisho maalin walba aan kula kulmo ka warhayo iyadii inaad la heshiis tiraahdo yes aniga waan kala tagnay laakiin waxaan u baahanahay ninkan inaan shaqo ka qabto haddii kale labadana bay nagu soo noqonaysaa laakiin ma doonayo wuxuu leeyahay meelaan doonayay roob ma iigu da'ay isagii baaba marka la fasaxay yaa gabadhii iyo reerkii iyo carruurtii guursanaya waxa guursanaya dowladda gaar ahaan Norway Sweden Canada ayaa guursanaya sidoo guursanayaan waxay ku oranayaan ma laga tagayaa annaga ku qabna annaga ninku ah annaga kiradii guriga ka bixinayna annaga korontadii ka bixinayna annaga ciyaalkii carruurtii iskuulaadka iyo waxyaalaha annaga extra ku siinayna annaga ku nadiifinayna waxaas oo dhan annaga ka warhaynayna uma baahnidnin annaga ku qabna maxaad ku falaysaa carruurtaadii iyo wax oo dhan way ogyihiin dadka wadankan aan la joogo inta badan ba kala tagaan ama marka hore ma isguursadaan oo isla nool yihiin oo way isbaranayaan war anigu ku oran maayo isla noolaada oo sidan Norwegian iyo systemku ay sameeyaan laakiin waxaan ku oranayaa haddii ninoo diyaar u tahay inaad aabba noqoto ama gabaray daacad ninkaaga u guurso xataa anigu dooni maayo in Norwegian ay guursado ama Swedishka ama Canadian ay guursado adaa ay guursanaya aniga iyo adiga wixii ilaahayna soo geliyo ayaan siinayna haddii kale waxa ku guursanaya dawladdan carruurtaasna waxay rabeen bay ka sameeyaan carruurta qaba kadibna ilmihii waxay ogaanayaan waxay qaataan iyo waxa la siiyo iyo meelahan iyo sida dad baa ugu imanaya 5 carruuraad haysaa aadan korin karayn waxaan carruur la dhalayo ma korin kartid I don't know waxa carruurahan tirada badan aad ku falaysaan anu garan maayo aadan hayn karayn ha ku ordin waxaan oo carruura mid kale waxaad ka hormaraysaa noloshiina warbal horta labadiinu inteedan isku soo boodina hoo aabi hooyadin isguursadayo isku yaacay gabar 17 waxaan jiidaya bahaladan la jiido booganka oo wada hooyo gabar yar oo Soomaaliyeed 19 jir ah oo ninkiina ka tagay inanka yara haba hadii la doonayo in family wanaagsan oo qurux badan oo gaanka hadda Toronto inay ka yimaadeen meelaha ama tan Sweden Stockholm ka dhacaysa ama kuwan ka dhacaya Ingiriiska aan ka maarano marka horeba soo saar jiil nadiifa ilma yar oo kooban oodan ku cararayn 10 carruur iyo 7 carruur iyo 8 carruur aadan tabar u haynin mugta quality-ga qurux badan laba aduu ilaahay ku siiyay 3 ma sha Allah gurigan ma idinku ma filna wada ogtiin ma joogno North America guriga waa weynaa subaabka laakiin badanaa guriyaha anagu aan deganahay waa 2 qol oo hurdaa 3 qol kuma noolaan kartid nolosha noocaas ilmahani wuxuu ka noqonayaa gang sidaas waxa badaynayaa dad jacayl isku guursaday oo is aroosay farxad ayay wax ku dhamaanaysaa murugo kharashkii iyo waalidii iyo wax walba haddaba murugadan say nooga dhamaan aan ka hortagno maxaa ka dhacay Sweden imika maxaa ka dhacay TikTok ka socda sooya aydan iyo qof wada xumbaynaya kadibna inay aan ku arko meeshan ku qabto markaas waxay maqleen hebla waxay joogtaa arooskii aroos dad iska raaxaysanaya dumar kaliya bay tagtay mindi ayay hoosta ka gelisay waliba inuu u soo dhawaatay iyadoo la buraanburayo ay gelisay waxa ka daran 3 kalena way la socdaan wata geeska imika geli moogta mindi bay caloosha ka gelisay dadku ma oga gabadhii oo dhacday ilaa laga warheeray dhiigii iyo wixii wax loo haystay inay suuxday gabadhan iska maartay sideeda sacabka tumaysa moogta marka waa wada dumar waxaan samaynayaa emotion qaadayo niman kibray isku dilayaan wadankii ay u raacayaan reer gabar yahay reer hebel ma tihid naftaada ha wareerinin nimankan kibray doonaya inay adiga kugu awrkacsadaan reer hebel maaha adigu ma tihid reer hebel mana noqonaysid ha isku riyoonin ilaahay u naxariisto labada wiil ku dhintay iyo 6 qof ee dhaawac ka gaaray iyo ceebtan halka ka socota breaking news meel walba aad arkaysaan wax kale leedo warmaaye aroosku ma hata naqanay ee gabar yahay gurigaaga joog $1 kama bixi kartid oo diraca waxaan kale kugu waaninayaa haddaad guursanayso 10kaaga qofoodeed garanaysa familiga ah soo kaxayso cid kale ha u yeerin waa inta taladeed 10 qofood ha ka badan iyadoo kharash yar meel yar oo kooban oodan u baahnayn intaan oo qof oo soo idaawaday uma baahnayn please aroosku
intaan naqaanay wuu dhaafay ilaahay u naxariisto reer Tuuto waxaan leeyahay isku duubnaada bal samaysta dad kale oo idin doodo maaragtay arrimahan Toronto iyo gaankan ka socda Toronto ee aabaha Soomaaliyeed ee mas'uulka yahay gaan baa ka socda iyo waali waxana mas'uulka aabaha Soomaaliyeed adbaan di salaam ya khayr baan isku ognahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh